sida diintu nafrayso afar hablood ama afar gabdhood ma guursanay aniga Ah. horta niyahow ilaahay subxaana watacaala asimana uumanno ya maxaa qoslaysaa muddo ah ayaa muqdisho kugu dambeysay goorma isladaa muqdisho ku laabatid sharmaake meeqa shaqo ayaa kasoo shaqaysay maasha allah niyo horta assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu am back adaa idin salaamaya saaxiibada qaaliga ah walaalaha qaaliga meel walba aad joogtaan waxaynu kala maqnayn muddo ku siman hadda 2 bilood ee ku dhawaad haddaysan ka badnaynba wax yar ayaa nooga dhiman 200 kunna adaa idin salaamayna isku soo noqosho wanaagsan waxaan rajeynayaa inaan sidan iyo si kasii badan iyo muuqaalo kasii badanba insha allah aan idiin soo gudbin doono waxaan maanta wada fadhinaa oo aan wada joognaa sharmaake cabdinaasir walaalkay sharma boy ay sharmaake soo dhowo maasha allah waan ku dhowaa walaalkay macaan diraac horta dhammaan waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaana u rajeynayaa caafimaad iyo cimri dheeri waxaa waaye meel walba ay joogaan dhiiggaana mideeyay soomaalinimo iyo islaamnimo intaba waan ku salaamayaa dhammaantooda waxaa idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meel walba aad joogtiin maasha allah hadda saaxiib waana dhowahay waa ikadhaa sharma niga nin weyn aad iyo aad adaa idin salaamayna islaan kadib sharmaake waxaa weydiin doonaa su-aalahaas aad ayay u koobnaan doonaan insha allah oo su-aalo kooban ayay noqon doonaan su-aasha ugu horeysa ee aan weydiin doona sharmaake waxay tahay sharmaake in muddo ah ayaa muqdisho kugu dambeysay goorma isladaa muqdisho ku laabatid horta muuqbilan dhammaan ciyaal muqdisho aad baan u salaamayaa waxaa idin leeyahay shakalaaza kafaza rakaza maaza waaye xaaladda waanu ku faraxsanahay in wax la iga weydiiyo reer muqdisho mar walbana waxaan jeclahay in ayaga le wax la iga weydiiyo waxaan leeyahay reer muqdisho aad baan u jeclahay ciyaal muqdisho waan jeclahay haddaan garowa joogana muqdisho anuu jooga le lamid tahay ma fahante horta maanta alxamdulilah australia ma joogo ama maraykanka ama canada ama lima dhahayo mataqaanaa gorbaa wadankii ku laabanaysaa horta wadankii waa joogaa waanu ku faraxsanahay meel ka midana wadankii baa joogaa abni badantii garowaan jooga aan ku suganahay dee garow ninkii garanaya mid cuqdadii ciil oga baxay maahane ninka imaadaa kama tago magaaladu dadku ku dhegtaa ilaan waa bartuu nasabka degaya marka waxaan leeyahay reer muqdishona waan jeclahay every time waan jeclahay maantana wax kaleeto iga meesha waa meeshan kusoo koray waa meesha walaalay ay kusoo barbaareen waa meesha waalidkayga hooyadii macaan adduunka ugu jeclahay afka ee deganeed waa meesha indhaha ku kala furay waa meesha farta sida loo qoro ku bartay sida wax loo aqriyana meeshaan ku bartay ummadana meesha ay ugu barteen mar walbana abaalkaas waa u hayaa reer muqdisho hataa xajka taga xataa waa usoo duceynaa dhammaantooda iyo soomaali weynbo marka muqdisho insha allah ama barnaamij show aan u tagayaa ama barnaamij kale aan u tagayaa ya ama xiise qaaday iyo aan u tagayaa horta muqdisho waan tagayaa anoona cidna magan kaga ahayn oo ciyaal muqdisho ah baan tagayaa haa reer muqdisho mar labaad iyo mar saddexaad aad baa idiin salaamayaa waan idinku soo wajahanahay insha allah hadduu alle yiraahdo cadowgana waa cagta hoostiisa waa kacsaadee su-aashaas meeshaas ugu baxay wallahi maasha allah sharmaake wuxuu yidhi xajka haddaan xitaa tago reer muqdisho uu soo duceynaya aad waa mahadsan tahay su-aasha labaad hadda ayaan geli doonaa sharmaake meeqa shaqo ayaa kasoo shaqaysay maasha allah niyo horta anigu shaqooyin intee shaqa kasoo shaqaysa marka ay dhahdid waxay noqonaysaa inaan xisaab galaa shaqooyin fara badan aan kasoo shaqeeyey laakiin oo dee shaqada inta aan isdhihi karaba mataqaana waxbaa kaaga soo qabsoomaayo ama alyoomkaaga xataa ka hele waa qabsan jiray horta ani waana ka shaqaysan jiray shaqada aan u qalmaa markaas oo nin raga ka shaqaystaa nin shaqooyinku waa iska fara badan yihiin laakiin shaqooyin inta waa galaan ayaan ka shaqeeyaa ku daahay xoogaa aan iskaga dhex jiray oo niyo waa iska birtaas un ma fahante birtaasaa mar aan xoogaa ku dhex jiray boosaasoo mataqaanaa ka shaqeynayay lamana dhigi karo dee ninkaan birow si fiican u bartay iyo hadda xoogaa gaariga waan ka aqaanaa laakiin toosna uma wada aqaano laakiin shaqada kuma raagin horta boosaaso waan joogayo boosaaso waa aan joogi jiray kuma joogin nin reer puntland oo nin landheero bidha ka dhacdo daas maarag kumaana joogin aniga shaqaa ku jooga saaxiib ma garatay
استقانا واستقانا نن walbo waa ninkii shaqeystaa absolute dadkaaguna waxay ku rabi karaan weliga ehelkaaga waxay ku rabi karaan ama kugu faani karaan marka tahay nin wax qabsada oo wax shaqeysto laakiin hadaad in meel aad ka muuqan waxa waaye qof ku hadal qaadaya xataa ma jirto horta boosaas waa ka soo shaqeeyay shaqada aan ka soo shaqeeyay waxay aad kuwa aniga aan doortay mid la ii doora ma ahaan dan oo saa'id ah iyo kaajo bala ahmida igu ridana ma ahaano oo maanta nin rag iyo rabbi balah baan ahaa laakiin waxaan jeclaa inaan shaqeysto oo aan soo dhacsado mar walba aan shaqeystana waxaa qofka aan jeclaa inaan tusiyo waxa aan sameynayo ilaahu ma istus u sameeyo ilaahu ma mataqaan waxa doon u sameeyo laakiin qofka aan jeclaa inuu igu farxo aad tusiyo hooyaday oo aan waa shaqeysanaya maanta markaas ayadana waa dhiirigeliyayga marka niyo birtaas geerish waan ka soo shaqeeyay han laqoto baawri aadi waan noqday labaajo waan ka soo shaqeeyay labaajooyinkan waaweynka ah afgooyo wax ayadana toorna waan ka shaqeeyay iyo alxan toornada ma baran been ma waa daawanaya ma ogtahay asxaabta isla shaqeynayeen odaga been uu gamaa Allah lagu amarna laakiin meesh toorna iyo alxan ay ahayd toornadii aan u gudbin barnaamijyadaas bagaarin ba alxankii khatartii aan mataqaanaa ku sii khatar ku sii noqonin ayadana shaqadaas ayadana dhowr bilood aan ka shaqeynay oo xoogaha ahayd afgooye ma sha Allah asxaab fiican oo aan la shaqeynay family oo yamani ahaan la shaqeynay abba xasan iyo meeshaan ka salaamaya qaasin inta ka salaamaya warragii aan la soo shaqeeyo dhan inta ka wada salaamaya aad iyo aad ragii aan la soo shaqeeyo kulli ma la isku soo koobi karee ni horta shaqo nin rog uu qabto waan soo qabtay oo aan cadkii ku dhacsanayo aan raadsanayo ma fahamtay marka waa la tilmaamaa hadii la dhaho meesha faara la isku soo qabanayo shaqooyin oo laakiin nin raga uu qabtay waxay doontaba ha ahaatee nin raga waa kiis wara jab aad iyo aad marka waan ku faraxsanahay inta soo shaqo inaan soo qabto hadana maanta inaan sharma ka ahay waan rajeynayaa mataqaanaa aad iyo aad inkastoo boqolkiiba boqol laakiin waagaas ay ficneed waagaas waxa waaye almiita qaadanaysa waa mataqaanaa waxa rabtaa sameynaysa waa soconaysa waa dhididaysa ma ahayd hadda ma fahamtay laakiin hadda yartaan waxa qam waay abti gurigaaga iska jiray ma fahamtay marka dadka caanka ah Allah u gargaaro dadka oo caanka ah Ilaahay ay idin gargaaro asxaabay anaga is oge dadka habeenka socda aakhiraad camal Ilaahay ay idin gargaaro aad iyo ما شاء الله شغال شرماك وحشية شغال نين رجع وكسر شغال وصل صامر المله تاسنا كاس أيام وجود بينا شرماكو قرماكو قد ما يسافد سحترت يا فيد أن ساحدو نيو بينكم مش قال إن مدة أهلا بس أنا هدرتان وأنا برنامج عن صوت له فيد أن ساحدو قاري هو دبس مع قان مركز ده الله وضع سن برنامج أنا كنت مركز ده صاحب فيد ساحد شرمة هو يلك حافظ عادي وكسر نقطة waxaan seexdaa 7 saac 8 saac 9 saac habeenimo oo wallahi saar shaqadan u bilaababa si fiican marka shaqadana waxay iska tahay shaqo farniyaho ma garatay ayaduna inta badan habeenkii la qabtaaba shaqo fan oo dhanaaba waxay tahay xamaasad ku leedahay habeenkii in la qabto inta badan xitaa hadaad habeenkaas shaqo qabanaynin wax sameys iyo waxba aan isku mashquulaya runtii dadku inay la yaabaan laga yaabo laakiin marka aniga aan ogaaday barnaamijkan in oo aan ku fiicnahay oo aan mataqaanaa ku haboonahay dhankan fanka ah walaas fara badan aan saaray ninka xaaladaha soo aragtay oo kaaga soo maraan kamid ah soo maray baan ahay oo kaaga sheekeenay marka xaaladan marka aan ku fiicnaa mid walbana ma dhameysan jirin shaqo walbaba dhaxba uga tiri jiraa because marka horena waa kala jiray haddana markaan si dhax kala hatees fiicnaa asaga bixijiro sida laakiin shaqo inta qabtay aan ku dheeraaday oo ilaa hadan aan ku dhex jiro fankaas baa kamid ah ma garatay marka niyahow goor afisi hatta 2 sano kor ku dib 2 sano muddo 2 sano ah 2 saac 3 saac 4 saac ma seexan laakiin insha Allah waxaan rajeynayaa hurdadeeda inaan soo cishtaa ku xumaa ii soo noqo please ii soo noqo hurdadeeda insha Allah waxaan rajeynayaa inay ii soo noqoto waxaa soo dhanna tiim sharma oo sabab ah laakiin insha Allah nasiina dheer
عندي لهذه waan qaadan doonaa hadday geeri noqoto iyo hadday caadi noqotaba hadduu alle idmo insha allah إن شاء الله شرماكو سيدا دينتو نفريسو أفر هبلات أما أفر قبلت مقرسين هاي aniga آه. horta niyahow ilaahay subxaana watacaala asimana uumanno ya maxaa qoslaysaa ilaahay asaana uunte سفيان jini insan wuxuu u uunte إني عبد adduunka u keena inay caabudaan صح dee diinteenna waxay sheegaysaa waddadu ilaahayna fare iyo rasuulkeena haddaa ka leexatid ya hadda qof muslinaana mogta diinta muslimka ku dhisan tahay سفيان marka horta markii laga taga kaftan guurka afarta ahna waxbuu ku yimaadaa guurka halka qofna waxbuu ku yimaadaa guurka halka qof aa ku ekaanayso wuxuu ku imaanayaa hal qof farxad ku siiye hal qof oo afar ku noqday keligii hal qof oo ku diiday inaa wax kalaba aad tabtid hal qof oo asiga inaa eegta maahane indhahaagu ay qof kale eegayna hal qof oo wax walbo aa u baahneed maanta ya farxadda bah ugu weynaatee ku siinayo markaa haysatid waa asbaabta keenta in aad hal xaas yeelataa asbaabta kaloo kee asbaabo badan way jiraan xataa ilkaha kadaa ku socotid ashiitaa xataa dee naag maxay kugu falayaan afar naag marka xaqiiqada markii laga hadlo anuu nin dhalinyaro ahay maanta 22 jir ah marka wixii dhici doono horta aniga macnaha kuma dhacayo dad way jiraan oo mawduuc oo mataqaanaa shakhsi ahaan wax samaysto wixiiba ayagoo aan galin go'aan ka qaato ina afar guursanaa afar naag guursanaa ana hal ku ekaanaada taas dooq ma ahan aniga shakhsiyadeyda wax isbedeli doono allahu a'lam ma ogi ma garatay marka ma degdegayo waxa waaye waxaan leeyahay afar xaaslayashan waa soo dhaweynaya hal xaaslayashan waa soo dhaweynaya aniga insha Allah de wixii ii qoran hadduu ilaahay afar ii qorana afartan guursanaya hadduu hal ii qorana hashaas aan ku ekaanaya aad iyo aad intaasaa kaga baxday shirbakow haddii Soomaaliya madaxweyne lagaaga dhigi lahaa maxaa samayn lahayd ni horta Soomaaliya laga dhigo madaxweyne haddii Soomaaliya aan laga dhigi lahaa horta dadka marka ugu horeyso dhaqan celis aa wada geyn lahaa dadka dhan maca wadaadadii wadaad macnaha ma jira ma dhahaayo afka qaloocan wadaado way jiraan laakiin social media ni soo batay baryahan waxa iska soo baxay ciyalka xaafadii oo dhan laba bariyo kuna sana oo sigaarkii qaadka iska deena ya qolo isku soo xiraa oo soo huura ma fahamtay bas mataqaana waxa waaye kutaabaa lagu soo kala furanaa lagu leeyahay mataqaanaa qasab ma mogta quraanka dacama ka gaarte inaad dadkoo dhan ninka ugu cilmi sareeya iska dhigtid muhiim ma ahan marka wadaadadooda waaweyn ma aragtay ma degdegaan faaraha ma soo galaan ma ku dheeraadaan mataqaanaa barnaamijyo noocan ah ma galaan wadaadadii markaa waxay iska noqdeen mara ku dheg mataqaanaa marka waxaan leeyahay wadaadada Soomaaliyeed yaana meel looga dhicin dadka wadaadada iska dhigaayo ya oo wadaadadana ahaan ana magac ma soo qaaday kulli ana agteeda wadaadka ma ahan dadka isku dhaxyaacay suufiyaasha oo aqaana dadka isku dhaxyaacay ee suufiyaasha abaliis social media naga daaya barnaamijka aad la soo galeysaan iyo buuqa waxa waaye horta madaxweynaha hadii laga dhigi lahaa maca wadaad shaqir iyo kabiir iyo caruur kurti dhaqan cilna wada geyn lahaa ya maxamed siyaad barcamal idab marka u yeelo horta inta ugu wanaagsanaa oo ugu fikradda aad aan dhihi lahay ho adiga qabiil lama ahaya I don't give a fuck qabiil waxba iga magalin laakiin inta aan isleeyahay raggaan ma taqaanaa waxba kula wada karaa ya baan dhihi lahay Soomaali marka qori iyo habad iyo wax ma ku fahansiiyaan ana hore inuu kugu sheegay dadkan ma fahmayaan 10 jeerna ugu soo celiyay Soomaali qoriga u sheeka nacab yihiin haddii la tumo Soomaali waxa way toosayaan
marka adiga 4 bilood aan u qaban lahaa oo dhaqan celin oo dhaqan celin ahaa shacabka Soomaaliyeed aad iyo aad midaada kale wadanka qudaar laga dhoofin karo ma jirtaan dhihi lahaa iyo xoolo laga dhoofin karo ma jiraan dhihi lahaa waxaan kaloo sameyn lahaa waxaan dhihi lahaa annaga hawadeena mataqaanaa iyo badeena iyo everything waxaa waaye ciidanka ugu adag horta maxaan u sameyn lahaa meelaha mataqaanaa dalka dhaqaalaha ahaan iyo intaba ay kasoo galayaan inkastoo nin wax bartayna aan ahayn haddana waxaan isku dayi lahaa wadanka xeeladii xaniyaba inaan ku wado waana xanaaq dhowaana iska xanaaq fududahay kulli labadii mataqaanaa hadii laba iyo waxba iska soo tataagay moogtahay haddaan qoorta ka siibo dadku ima qabanayaan ilaan fanaan kaliya ma sharm boyna waa ay moogtahay nigo dadka fanaan madaxweyne kaliya ma fanaan oo ahay marka halkii labadii igu buuqdo qoorsiibi lahaa meesha ku qoorsiibayna ma tuseenbo ma fahantay boqolkiiba 70 dakhliga wadanka soo galo wadanka galin lahaa 30 ani familkayga cuna lahayn inta ka hadla ma qosle xariiqo dadka hadda madaxdeena hadda boqolkiiba 90 iyo 9 ayaga cuno ana waxaan ku dhahay boqolkiiba 70 dalka dadka galin lahaa 30 ani familkayga cuna lahayn beenku ma sheegay ilaahay oo laga baqa hadii laga baqa loo hadlo waxa waay ani familkayga hooyaday aabahay walaalahay eedooyinkayga inta famil ahaan dhan adi waa wada qaadi lahaa Mareykan iyo waxaan geelnaa Canada iyo Australia familkayga dhan macnaha habrarahay carwarahooda war wixii oo Sweden meelaha si jooga xataa Yurub taas kale waa ka qaadi lahaa gaajo ay ogtahay America meelahaas aan geel lahaa mideeda kale waxaan kaloo sameyn lahaa niyow diraaco adiga laftirkaaga waa ku kala kicin lahaa saaxiib ma fahantay maadaama saaxiibkayga aad tahay nabdiga waa gacan waa ku kala kicin lahaa Mareykanka ku geyn lahaa nadaaribta afar xaasta sheegaysa ku guurin lahaa niyo waxa soo dhan markii laga soo tago wixii soo haro oo dheeri noqdo oo meelaha naga soo galgalana anaa isku cayilin lahaa ujeedana waxa ujeedana caata ah أنا واحد بدن أباهن مركا ودن كان واحد أقبل لها نفتي ذن واحد أقبل لها أدي أد مركا ساسن وما أفوين أنا أفكر جدين على إسلامية وحاول أنت أفكار أنت سيعنا يا ولي جسوا جارابو أدي أد مركا أفرتي سنة دمستو ووحي العقد ودن كيالنا عن دمستو وأشكوه بيو إنه وحي إذا ماذا سشرف له وقروح بدن أحلك ورجل لها أنا ولي بدتكي وحيصي إيباهنين أيوة إيش إيباهن بدتكي يا رب